dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo markii uu ku laabtay dalka Itoobiya sheegay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay yihiin hal dal. Daahir Maxamuud Gale, wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka jawaabay hadalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya. waxaan rabaa in lagu noqdo warka ra'iisul wasaaraha Itoobiya meelo badan aan ka akhriyay runtii aadna waan u dhuuxay waxa kale gadisan markii laga hadlayo geeska Afrika iyo wadamada geeska Afrika iskaashigooda iyo markii labada dal xiriirkooda laga hadlayo markii laga hadlayo waxa laga hadlay oo la isla meel dhigay xiriir diblomaasiyadeed oo qoto dheer qunsuliyado dekado amni iskaashi laba dal madax banaani la xurmeeyo dal la arka nabadgelyadiisa oo laga shaqeeyo la iska kaashado arrimahaas markii laga hadlayo qodobka labada dal ayaa ku qoran marka laba dal oo iskaashanayso oo isdhac degan oo daris ah ayuu ahaa warka halkan ka soo baxay waana hanaanka anaguna aan rabno iyaguna ay rabaan laakiin dhaqaalaha adduunka ayaa wuxuu ku socdaa iskaashi ballaaran ra'iisul wasaaraha waxaan meelahan ka akhrinayay inuu yiri inaan noqono sidii Yurub ama sidii Mareykan ama sidii Imaaraadka aan mustaqbalka arrin mustaqbalka ah asagoo ka hadlaya inuu saas uga hadlay laakiin anaga Soomaali hal dal inaan isku noqono anaga warkaan akhriyo saas ma ahayn marka waan jeclaan lahaa saxaafadda iyo dadka wax sameynaya inay qodob war markaad akhrisid waxaa lagu noqdaa asalkana waa lagu noqdaa oo hadalka meel lagama soo naqliyo waxaa kaloo lagu daraa si guudna waa loo akhriyaa asagoo oo adimankiisa wato hadalka oon qaybir aysan ka soo go'in alxaasil heshiisku waa laba dal iskaashigu waa laba dal wax wadaaggu waa laba dal diblomaasiyaddu waa laba dal dekadahana waxaan kaga hadalnay inay arrinkaas laba qaran oo daris ah oo isdhac degan haddii berrito ay geeska Afrika isku furmo oo dhaqaalihiisa isku furmo qaaradda Afrika dadka saxaafadda dhalinyarada ay u badan yihiin waxa socdo waxa la yiraahdaa Cairo and Cape Town waxa la yiraahdaa in Cape Town oo Koonfur Afrika iyo magaalada Qaahir in qaaradda la isku xiro ay dhaqaaluhu isku furmo Soomaaliya ayaa faahfaahisay hanaanka ay u gashay heshiiska dhinacyada badan quseeyay ay kala seexdeen Itoobiya waxaana ay soo qaaday Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagaan wadiiqooyinka ku saabsan amniga iskaashiga dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda waxaana dowladda Soomaaliya ay carabawday dareenka heshiiskaasi ay ka qaban karaan bulshada Soomaaliyeed iyadoona shaacisay in hanaanka meelmarinta heshiiskaasi uu quseeyo dhammaan hay'adaha dowladda dadka Soomaalida ah iyo dadka Itoobiyaanka ah labada dal markay iskaashadaan oo siyaabo kala gedisan ay isu kaashadaan waxay la tahay in nabad aad iyo aad oo sal adag ku fadhiso oo aan siyaasadda ku xirnayn rabitaanka bulshooyinka ku xiran inay meeshaas ka dhalan karto intaas waxaa ka sii gedisan anaga waxyaabaha noogu fiican oo adduunyada aan haysano dalkeena iyo dadkeena waaye dalkeena waxyaabaha aan dibadda ka helna waxa ugu qaalisan waa biyaha macaan wabiyada waaye wabiyada waxay nooga yimaadeen Itoobiya nooga yimaadeen wabiyada maamulkooda oo aan caalami ah jirto laakiin dawladda ay ka soo burqadaan iyo dawladda ay ku dhamaanayaan labaduba qorshe midaysan ay isla og yihiin ayuun bay wax uga bedelaan adduunka markii laga hadlo wabiyada aan halka dal ku koobnayn ay gudbo marka kaalin iskaashiya oo dhaqaale oo generation ka hadda jooga wax ku dheefo oo kuwa dambe ay wax ku dheefaan ayaa lagu heshiiyay in la sameeyo dabcan guddiyo isku dhafaha la sameyn doonaa khubaro la sameyn doonaa meelaha ay waxa laga bilaabaya la sameyn doonaa si loo maalgelinayo shuruucda intaas markii la sameeyana dawladdu waxa ay dhaxmari doonaan hawlahaasi mu'assasaadka dawladda sida loo kala leeyahay ama ha noqoto qaybta fulinta xukuumadda ama ha noqoto baarlamaanka oo heshiisyada caalamiga ansixiyo ama ha noqoto madaxweynaha ama madaxtooyada oo marka dambe sharcigaas dhaqangalka ka dhigo intaas oo idil ay mari doonaan laakiin xilli cusub iyo waji cusub iyo marxalad cusub in labada dal uu bilowda go'aanka u ahaa dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in aysan ka hor imaanin heshiiskii dekada Berbera ee saddex geesoodka ahaa balse waxa ay sheegtay in qaabka loo maray heshiiskaasi uu ahaa wada qaldan heshiiska Imaaraadka ee dekada Berbera dowladda Soomaaliya ma diidin mana ka biidin nuxurka qodobada uu ka kooban yahay laakiin waxa la diiday waxay ahayd hanaanka uu dhacay dowladda Soomaaliya waxay ka hadashay waana ku noqon kartiin waxay ka hadashay in heshiiska dekadaha iyo aeroboorada iyo maalgashi nooc doon ha noqdo inay soo dhaweynayso kaliya loo baahan yahay cid laga mucaamala inay noqoto dowladda dhexe
cabdicasiis ibraahim axmed okey TV-ga Universal magaalada Muqdisho.